ku waa udubdhaxaadka horumarka iyo kaabayaasha dhaqaale. Mas'uuliyiinta xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka ayaa booqday jid jay ah oo xafiisku mulkiile ka yahay oo isku xidhi doona harta sheekha iyo degmada Xarshin. dhererkiisuna dhan yahay 55 kilomitir ayna ku baxayso adduun lacageed oo ka badan 129 milyan oo bir. Jidkan waqtigan waa la dhisayaa oo shaqo ayaa ku socota. injineerka gacanta ku haya dhismaha mashruucan wadada ayaana ugu warbixiyay mas'uuliyiintan geedi socodka shaqada iyo halka ay marayso. mashruucan waxaan bilownay January 20keedii haddana mashruucu wuxuu marayaa progress 18%. shaqada ugu badan ee qaybta carrada la soo korinayo intaan la gaadhin design layerski carrada la soo korinayo in xoogga saarno nimanka intii ugu badnayd 18 kilomitir aan ka qabanay. wixii xilli roobaadka ka dambeeyay ilaa hadda si xawli ah ay noogu socotaa. wakaalada dabagalka daraasaadka iyo naqshadeynta mashaariicaha deegaanka Soomaalida ayaa jidkan naqshadiisa samaysay dabagalna ku ah mashruuca. mareey ku xigeenka wakaalada oo wafdiga qayb ka ahaa ayaa goobtaasi wareysin u siiyay. sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay inta isbedelka kadib mashaariicuhu waxay kaga duwan yihiin mashaariicii hore. daraasaad sax ah iyo naqshad sax ah ayaa loo sameeyaa kadibna dhismihii dabagalkii saxda ah lagu wadaa. hadda saad arkaysaan halkan waxaa wada jooga saddexdii qaybood ee dhismuhu ka koobnaa. waxaa loogu talagalay 2 sano inuu dhamaado. waayo darashadiisu waxa weeyaan DS2 ama design loo sameeyay design standard loo sameeyay. cimrigeeda waxaan filaynaa inuu noqon karo 10 sano ay hadda u talagaleen. 10 sano wixii ka dambeeya dayactir bay bilaaban doontaa. laakiin 10 sano wax dayactir uma baahanayso. intaa wixii ka dambeeya dayactir bay baahan doontaa ilaa 50 sano way jiri kartaa. laakiin waxaan rajaynayaa intaa ka hor in darajada laga dalacsiin doono oo darashooyinka ku soo dhawaan laamida aynu keeni doono insha Allah taala. wasiir ku xigeenka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Guuleed Axmed Cali oo mas'uuliyiintan howlaha shaqo ku marayay mashaariicda xafiisku fulinayo horkacayay ayaa wareysi naga siiyay jidkan waxaana hadaladiisa kamid ahaa. hadda ka hor baahi badan oo jidka loo qabay ka jirta meeshan. bulshadu waxay ku rafaadsanaayeen dhulkan oo marka roobku da'o American oo dhiiqa. marka shacabka baahida badan ay jirtay darteed xafiisku isagoo baahida ka duulaya ayuu daraasaadka sameeyay. wakaaladana noo sameysay daraasaadka deegaanka Soomaalida kadib kontraad baan ku bixinay 129 milyan baan ku baxaysa. waxaana la bilaabay dhamaadkii bishii January ee sanadkan ilaa hadda muddo 6 bilood dhan ayuu socdaa. jidkan marka la dhameystiro waxaa la filayaa inuu kaafin doono baahida shacabka ay u qabaan jid wanaagsan oo marka horena ay ku rafaadsanaayeen xagga ganacsiga isku socodka gaadiidka iyo shacabka laftirkooda dhibaatooyin badan bay ku qabeen. marka inuu wax badan ka tari doono nolosha dhaqaale iyo horumarka bulshada aaga ku nool ilaa gobolada shishe oo halka loo sii mari karo wax badan inuu ka tari doono ayaan filaynaa. harta sheekha iyo Xarshin isocodkooda waqti badan ayuu qaataa jid la'aan awgeed. xilli roobaadkana wayba kala xidhmaan balse jidkani marka uu dhamaado waxaa bulshada u sahlanaan doonta isu socodka gaadiidka iyo bulshada. dhinaca kale mas'uuliyiintan ayaa soo maray ceelbiyood xafiiska waraabka iyo dooxooyinku ka qoday harta sheekha kaasoo waraabin doona bulshada reer harta sheekh waana ceelkii ugu horeeyay ee harta sheekh laga qoday. qaar ka mid ah odayaasha reer harta sheekh ayaana bogaadiyay horumarka xukuumaddu u qabatay. heshin biyo la'aan baa ka jiri jirtay. biyaha waxa ugu sokeeya biyaha jigjiga iyo biyo qaaxa iyo biyo arabsi 3 sano ka dhaxlahayn. marka waxa ilaahay mahadiyay in halkan ay biyo imka nagu yimaadeen wali anfacoogi ma arag laakiin waa noo bilow. waxa bilow nagu yihiin insha Allah waxaan oo ma meeshan waa meel xoolaha iyo dadku beeraha way ku fiican tahay aad bay wanaagsan tahay. laakiin biyahan aad ugu baahi badnay ilaa xad dhowr jeer baa laga baaray. waxa lagu biyo ma lahayo waxba lagu ri waan iyo jabnay. maraf badan hatta hantideeda aan ku bixinaan u diyaar garownay insha Allah. imka lagu guuleystay way ka soo bixin biyo marka wanaga arkayna waan cabaynaa insha Allah. inaan ugu filaadana waan rajaynaynaa xoolihii geeli arigii loodii wala kala maray boodi wada kasaan. waxaan u baahanay magaalada la jiido la geeyo maadaama baahi badan ay jirto meeshana xoolo dhaqato beerley aan nahay labadaba wada leenahay. biyahan waxaan ugu baahi badan maanta hanti kasta nooga fiican waa biyaha. aad iyo aad cid kastoo keento ka hawlgashay aad baan ugu mahadinaynaa. shaqadii biyo gelinta iyo goobihii dadka iyo dunyadu ka cabi lahaayeen waa la sameeyay waxaana muddo yar lagu soo gabagabayn doonaa biyo gelinta magaalada sida uu sheegay mudane aadan yuusuf wasiir ku xigeenka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka dawladda deegaanka Soomaalida.
mashruucan markaan bilaabaynay xafiiska horta muddadii dee lagu jiray maxay ahayd daraasaadka iyo waqti qaatay ilaa 2 bilood laakiin qoditaankiisa muddo bil ayaa lagu soo gabagabeeyey oo muddo gaaban markii shaqada lagu guda galay muddo gaaban bayada lagu soo gabagabeeyey marka ceelkana waxaa la qoday 480 mitir iyo biyaha lagu gaaray saan wada ogsoonahay kulli dhulkan waxa la oran jiray daraasado badan oo laga sameeyay inaan biyo laga gaari karin waxaa jirta xaggan haddana waa kii wadagu sheegayay bulshada meesha ku noolay in meesha ugu dhoweeyay maqaaxa ay maaragtay biyaha ay ka heli jireen macna ay u aruuri jireen laakiin hadda ka hor waxaa la isku dayay in dhulwaale looga soo jeeday oo la isku dayay in maaragtay biyo loo keeno laakiin waxay noqotay taasi in kolbadee waxa weeyaan inay arrintaasi aan guul laga kaarin oo biyo la'aanta ay sii socotay marka waxaa dhacday in imika meeshan taaganahay imika ceelkii in lagu guuleystay kulli waxa weeyaan waxaad aragtaan waxa loo sameeyay meelo ay dadku ay biyo ka cabiyaan oo laba imika qaybaad biyo ka cabiyaan iyo 3 dar oo imika isku meel gaara inay maad aragtay dadku uga sii cabaan kulli biyaha waa la wadaa oo la jiidayaa maaragtay magaalada loo geenayaa laakiin inta ka horse ee maaragtay biyo ay bulshada uga faa'iideysato in maaragtay ay ka faa'iideysato